waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. waxaan eegi doonaa waa kuwee kooxaha u tartami doona koobka adduunka ee kooxaha, sidoo kale xidiga kooxda Barcelona oo doonaya inuu ka tago kooxda, iyo Atletico Madrid oo heshiis kordhin u sameyn doonta tababaraheeda. dhamaadka muuqaalkana waxaan ku eegi doonaa kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doona maanta. aynu ku bilownay sida uu sheegay wargeys ka mid ah kuwa kasoo baxa caasimada Madrid. ciyaartoyga Toni Kroos ayaa la filayaa in kulanka ay kooxda Real Madrid ciyaari doonto maanta horyaalka La Liga in ciyaartoygan lana siin doono. Toni Kroos ayaa 5 kulan ee ugu dambeeyay ay kooxda Real Madrid ciyaarto, haday noqoto horyaalka La Liga iyo haday noqoto koobka Champions League-ba. dhamaan ciyaartoyga Toni Kroos 5 kulan ee ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda kusoo bilaabaneysay 12 ciyaartoy ee kooxda Real Madrid ay kusoo galeysay. haddaba Toni Kroos ayaa la filayaa in kulankan maanta lana siin doono ciyaartoygan aanu kusoo bilaaban doonin 12 hore ama safka hore ee kooxda Real Madrid oo ka mid noqon doono ciyaartoyda kusoo bilaaban doonta kursiga keedka kooxda Real Madrid. isla kooxda Real Madrid maalmaha soo socda waxaa wada kulmi doona wakiilka ciyaartoyga Marco Asensio iyo mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid, waxayna ka wada hadli doonaan fikirka ah in heshiis kordhin loo sameeyo ciyaartoyga Asensio. haddaba Real Madrid ayaa hadda waxa ay qorsheynaysaa inay 7 ciyaartoy oo ka mid ah kuwa u ciyaara kooxda ay heshiis kordhin u sameyso, waxaana la filayaa inuu ciyaartoyga Asensio uu noqon karayo ciyaartoyga ugu fudud ee heshiis kordhin u sameyn karta kooxdu. Asensio ayaa hadda la qorsheynayaa inuu shaqo cusub ama boos cusub uu ka qaadan doono kooxda Real Madrid maadaama uu doonayo tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti uuna yahay qofka ka dambeeya in ciyaartoygan heshiis kordhin loo sameeyo. haddaba ciyaartoygan Marco Asensio markii uu yimaaday tababare Carlo Ancelotti waxa uu isku dayay ciyaartoygan inuu boos cusub ama shaqo cusub u helo, oo waxa uu isku dayay inuu qabto ama uu ciyaartoyga Asensio qabto shaqadii uu qaban jiray ciyaartoyga Angel Di Maria markii uu ciyaari jiray kooxda Real Madrid xilligii uu watay tababare Carlo Ancelotti. balse Asensio ma uusan ku guuleysan inuu arrinka ka soo baxo oo kulamadii ugu horeeyay ee uu ku tijaabiyay booska cusba ee ciyaartoygan uu ka ciyaarsin rabay oo uu ku guuldareystay oo kama soo bixin. haddaba intaa kadib Carlo Ancelotti waa uu ciyaartoyga waa uu iska daayay oo waxa uu ku ciyaaray sidii caadiga ahayd oo khadka dhexe waxa ka ciyaarsiyay ciyaartoyda caadiga ahayd. Asensio intaa kadib waxa uu ku biiray kooxda Real Madrid ciyaartoyda keedka ugu jirta, oo xataa mararka qaar ama waayihii ugu dambeeyay Asensio waxa uu ka mid ahaa doorashada saddexaad ama ciyaartoyga afraad ama saddexaad ee haddii uu tababare Ancelotti u baahdo bedel inuu sameeyo inuu 2 ciyaartoy ilaa 3 ciyaartoy ka horeysiin jiray ciyaartoyga Marco Asensio oo intaa kadib uu Asensio dooran jiray. intaa kadibna waxaa jiray warar sheegay waayihii ugu dambeeyay in ciyaartoyga Marco Asensio ay isha ku hayso kooxda Barcelona oo ay doonayso inay la wareegto xagaaga dambe sanada 2023 xilligaas oo ah xilliga uu dhamaanayo heshiiska uu kula jiray ciyaartoygani kooxda Real Madrid. haddaba hadda tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa ka dalbaday mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid inay heshiis kordhin u sameeyaan ciyaartoyga Marco Asensio. dhinaca kale xidiga kooxda Barcelona ee Frankiise ayaa la sheegay inuu doonayo ka tagitaanka kooxda Barcelona bisha January. ciyaartoygan ayaa kusoo biray kooxda Barcelona bilowgii xilli ciyaareedkan. haddaba Frankiise ayaa markii hore waxaa la qorsheynayay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda khadka dhexe ee kooxda Barcelona sida joogtada uga ciyaarto. Frankiise ayaa haddaba waxa uu la kulmay niyad jab, taas oo ah inaanu ka mid noqon ciyaartoyda sida joogtada uga ciyaarta khadka dhexe ee kooxda Barcelona maadaama uu tababare Xavi ku qanacsan yahay ciyaartoyda kale ah Pedri, Gavi iyo Sergio Busquets, taas oo ogolaan weyday ciyaartoyda Frenkie de Jong iyo sidoo kale Frankiise inay waqti ku filan ciyaaraan ama ay kooxda Barcelona khadkeeda dhexe waqti ku filan ay u ciyaaraan. haddaba ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu usoo bandhigay kooxa ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Talyaaniga inuu kusoo biiro ama uu amaah ugu biiro bisha January, waxaana la sheegay inay ka mid ahayd kooxihii uu usoo bandhigay inuu ku biiro ama amaah uu ugu biiro bisha January kooxdii uu markii hore ka yimaaday ee AC Milan, oo markii hore ciyaartoygani waxa uu ka yimid kooxda AC Milan waxaana kusoo biiray kooxda Barcelona. haddaba Frankiise ayaa hadda waxaa jira inuu qorsheynayo ka bixitaanka kooxda Barcelona bisha January isagoo amaah ugu socda koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara ama ka dhisan horyaalka Talyaaniga ee Serie A, halka ay jiraan kooxo kusoo biiraya kooxaha ka qayb qaadan doona ama u tartami doona koobka adduunka kooxaha ee FIFA Club World Cup. waxaana ilaa hadda koobkan u soo baxay kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay koobka Champions League qaaradda Yurub, Al Wydad oo ku guuleysatay koobka qaaradda Championka Africa, Flamengo oo ku guuleysatay koobka Championka qaaradda Latin America ee Copa Libertadores, Santos oo ku guuleysatay Championka America, Auckland City oo ku guuleysatay Championka qaaradda Australia. waxaana hadda dhiman kooxdii ku guuleysan lahayd koobka Championka qaaradda Aasiya ee FC iyo kooxdii ku guuleysatay horyaalka wadanka martigelin doona koobka adduunka kooxaha ee FIFA Club World Cup. oo koobkan waxaa ka qayb qaata kooxda ku guuleysata koobka Champions League qaaradda Yurub,
kooxda ku guuleysatay Champions League qaaradda Afrika, kooxda ku guuleysatay Championka qaaradda Aasiya, kooxda ku guuleysatay Championka qaaradda Australia, kooxda ku guuleysatay Championka qaaradda America, iyo kooxda ku guuleysatay Championka qaaradda Latin America, iyo sidoo kale kooxda ku guuleysata liiga ama horyaalka wadanka martigelin doona koobkan. waxaa iyaduna jiray sida uu sheegay mid ka mid ah wargeysyada Ingiriisku buug cusub oo soo bixi doona bisha soo socota. buuggaas oo ka hadli doona inay soo laabashadii ciyaartoyga Ronaldo uu kusoo laabtay kooxda Manchester United ay ahayd mid fool xun. sidoo kale buuggan ayaa sheegay inaanu ciyaartoyga Ronaldo ku faraxsanayn muddadii uu kooxda Manchester United uu tababaraha u ahaa tababarihii hore ee Ralf Rangnick. sidoo kalena kooxdu inaanay sidii loo baahnaa u maalgelin xerada tababarka kooxda Manchester United. waxyaabihii kale uu Ronaldo ka xumaaday waxaa ka mid ahaa inaanay kooxdu horumar la taaban karo aanay gaadhin ama aanay samayn tan iyo markii uu ka tegay ciyaartoyga Ronaldo sanadii 2009. ugu dambeyntiina Ronaldo waxa uu la yaabay xaaladda ciyaartoyda tirada yar ee ilaalinaya habka ugu fiican ee jidhkooda iyo caafimaadkooda. waxaana la sheegay sida uu sheegay wargeysku inuu buuggan soo bixi doono bisha soo socota. halka ay kooxda Atletico Madrid mas'uuliyiinteedu qorsheynayaan inay heshiis kordhin u sameeyaan tababaraha kooxda ee Diego Simeone ilaa sanadda 2024. waxaana la sheegay inaanay saameyn ku yeelan doonin kabixitaanka ay ka hadhay kooxda Atletico Madrid koobka Champions League. go-aanka mas'uuliyiinta oo xataa haddii ay kooxdu ka hadhay Champions League waxaa suuragal ah in heshiis kordhin loo sameeyo tababaraha kooxda. ugu dambeyntii haddaynu eegno kulamada ugu muhiimsan ee maanta la ciyaari doono horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda Nottingham Forest. Arsenal ayaa isku dayi doonta inay kasoo ceshato hogaanka kooxda Manchester City kadib markii ay kooxda Manchester City kulankii shalay ka badisay kooxda Leicester City. haddaba Arsenal kadib marka ay kulankan ciyaarto haddii xataa ay badiso kooxdu ama ay bareejo gasho waxaa laga filayaa ama waxay noqon kartaa inay soo ceshato hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo hadda kooxda Manchester City waxay kaga haysaa hal dhibic oo kaliya, balse Arsenal waxaa laga baayahay inay guul la timaado maadaama ay la ciyaarayso kooxda Nottingham Forest. dhinaca kale horyaalka La Liga waxaa ciyaari doonta kooxda Real Madrid oo la ciyaari doonta kooxda Girona. Real Madrid ayaa iyaduna isku dayi doonta oo Arsenal oo kale ah waxayna isku dayi doontaa inay hogaanka kasoo ceshato kooxda Barcelona kadib markii ay kooxda Barcelona kulankii shalay kooxda Valencia 1-0 kaga badisay. Real Madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda Girona oo kooxda Girona waxay imaan doontaa garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu. haddaba markii ugu dambeysay ay kooxda Girona ku ciyaarto garoonka Santiago Bernabeu waxay ahayd sanadii 2019. xilligaasna kooxda Girona waxa ay ku badisay 2-1. sidoo kale Manchester United ayaa iyaguna la ciyaari doonta kooxda West Ham oo kooxda Manchester United waxay isku dayi doontaa inay kooxda Chelsea ka sareyso maadaama hadda ay ku jirto kooxda Manchester United kaalinta 6, Chelsea ay ku jirto kaalinta 5. Manchester United-na hal dhibcood ay u dhaxeeyaan waxay isku dayi doontaa kulankan inay badiso si ay u gasho kaalinta 5 oo hal dhibic ay u dhaxeeyaan iyadiyo kooxda Newcastle United, balse kooxda Newcastle United ay ciyaartay hal kulan oo dheeri ah ama hal kulan ay ka badan tahay kooxda Manchester United. ugu dambeyntiina kulamada kale la ciyaari doono waxaa ka mid ah kooxda AC Milan ayaa la ciyaari doonta kooxda Torino oo AC Milan oo hadda soo gashay kaalinta 2 ee horyaalka Talyaaniga ee Serie A oo hadda ay ka sareyso kooxda Napoli 6 dhibcood ayaa iyaduna isku dayi doonta inay 3 dhibcood ka dhigto farqiga u dhaxeeya kooxda AC Milan iyo kooxda hadda hogaanka haysa horyaalka Talyaaniga ee Serie A ee Napoli xilli ciyaareedkan. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like, subscribe na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.